iskale shirkayga jaraa'id ee saaka wuxuu ku saabsan yahay inaan caddayno mowqifkeenna ku aadan dadaalkii ay wadeen duubabka dhaqanka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir ee ku aadanaa sidii la isku waafajin lahaa awaamiirta iyo go'aanada maamulka gobolka Banaadir iyo rabitaanka saaxiibada kale ugu horreyn waxaan jecelnahay inaan halkaan ka bogaadino dadaalka ay wadaan odayada dhaqanka innaga arrintaas wax weyn bay noo tahay waan muxuu ahay bogaadinaynaa waa ku faraxsannahay wax muddo dheer la'aa ayaa ahayd in la helo odaya u istaaga danaha gobolka Banaadir iyo dadka gobolka Banaadir muddo dheer yaan runtii arrintaas baahi weyn loo qabay inay hadda odayadu isla qaameen ayadoo aanay qoro gaara furaha ku rogina farxad weyn ay noo tahay waa soo dhaweynaynaa dadaalka odayadu wadaan shalay iyo daraad wada hadallayaan odayada yeelanay waxaan u sharaxnay waxa aan ku salaynay go'aanada aan soo saarnay ee ah magaalada inaan banaabax laga samayn karin iyo noocyada kala duwan ee muxuu ahaa isku imaanshaha haba ugu darnaada taas tan banaabax ugu darnaato waxaan u sharaxnay inay sababtu tahay arrin amni waxaan u sharaxnay in aanay jirin baahi hadda arrintaas loo qabo oo haddii saaxiibadan ay ku salaynayeen inay tahay arrin ay culays ku saarayaan qabsoomidda doorashada inay arrintaasi si fiican ku soo dhammaatay shirkii madasha lagu heshiiyey madaxweynuhu bogaadiyey aanay jirin cid maanta arrintaas bannaanka taagan oo ka soo horjeeda haddii arrintaas la dhamaystiray oo lagu heshiiya annaga nooma muuqan baahi inay jirto ah in laysku soo baxo waayo waxaad qiyaasi kartaan culayska amni ee jira ee taagan arrintaas waa arrinta waxaana diyaar u nahay odayadu sida aan qiyaasayna berri waxay la balansan yihiin garabkii kale waxaan rabnaa inay u geeyaan fikradda annaga aan qabno horena aan u sheegnay oo ku salaysan badqabka dadka gobolka Banaadir annaga dadka gobolka Banaadir amnigiisa waa nagala qiimo badnaaday wax lagu saleeyo doorasho muddo gaaban soconaysa qofka alla u qoran oo ku soo bixi doono sidaas daraaddeed waxaan caddaynaynaa inaan annagu taageersannahay ku faraxsannahay bogaadinayno garab istaagayno odayaasha odayadeennii waxaan ku qanacsannahay inay fahamsan yihiin culayska amni ee na haysta inay fahamsan yihiin in arrintii doorashada laga heshiiyey oo maanta aanay jirin baahidaas waana garab taagannahay waana soo dhaweynaynaa waana ixtiraamaynaa wixii ay naguna soo laabtaan haddii ilaah yidhaahdo aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan ku darayaa oo aan rabaa inaan sii adkeeyo sida aad ka warqabtaan doorashadii la galay doorashada haddii la galay dadka inta badan siyaasiyiintu waa kala mashquulayaan federaalku waa mashquulayaa arrintaas daraaddeed waxaan xoojinayaa inta doorashada arrintii tale ee go'aankeenii ahaa in inta doorashada lagu guda jiro gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir oo uu madax bannaan yahay taladiisa siyaasaddiisa iyo amnigiisa intaba oo aanay jirin qof kale oo arrintaas amniga ku saabsan lagala tacaamuli karo nooc kasta oo ay tahay waxaan ula simannahay wasaaradda amniga sida 17 gobol ee Soomaaliyeed oo kale ayaan ula simannahay haddii waraaqaha wasaaradda amniga aanay boosaaso ka socon karin dhuusamareeb iyo baydhabo iyo boosaaso iyo jowharna ka socon karin ma jirta sabab culays gaar ah loo saaro dadka gobolka Banaadir arrintaas marka waxaan rabaa ayadan inaan sii adkayno aad iyo aad yaan maaragtay kaga mahad celinaynaa waana mahadsantihiin